يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى مواعيد جود مولاك هرعي يا نفس أنا قوي إلهي هالك محيدي أنا أروري ذا جمني إلهي داق إلهي بمحيدي يا أنه هي إلهي بنسيي إلهي بنبقولك وبقوله رجوع شكرينا يسوى محيدي إلهي أركي محيدي يسوى هالكيود محيدي سقاد محيدي قرنا وفوحنا وكان يه هالكان جمني إلهي محيدي ونوار ساقي إلهي بنحيدي بقولك وبقوله شكرينا أنت نوك أنت نام محيدي مهد علم بينقول يا ضحي إذا دد من دافع ودي ستان وترى أستغفر الله إلهي وين حريصني أستغفر الله أنا دمبيجين يبقى دولك يبض يميل وبخبطي كاساي نوكي أنا أبارتا صلاة أنت بأبارتا نوكي أنت سكين يوم بحوينا أبارتا نوكي أنت إلهي يوم خدير أنا بأبارتا نوكي أنت وحن لقرنينه قعنت قبصني أي أبارتا نوكي أنت محن إلهي هو توبت كني أنا نحن إلهي هو توبت كني تبنا إلى الله تبنا إلى الله ده إلهي هو توبت كني والله يسخبنا يا هل كان معك واصل هل كان معك واصل ضد واصل حال الله مسيني واكون فيداريه إلهي ونحرسه إلهي ونحرسه من ولا ما كانوا يذكروا النبي يقول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فاعل هل كانوا يذكروا والله وقبل قال إن قبل كاشكاين عندنا نور وحيد بير في عمباتين ولكنا وحوها حدات في عناتنا ولكن علينا waxaan duubayaa TV qaranka adduunka oo dhan baa maanta laga daawanaya adduunka oo dhan baa weerar laga daawanaya casarka aan joogno ayaa warkiinu meel walba tagaya horta way nii ducaynay leeyihiin hadday wax yar xumaadaan nasma eego war bini aadamku nuqsaan buu leeyahay ilaahay baa kamaal leh wax wala gefi karaa waxaa la yidhi soomaaliduna dadku markay isxisaabtamaanay علاشودي وناكسناتو maxay yiraahdaan shan inoo kala talaana shaqshaqaqa gooda midnimadu waxa ay keenaysaa wadanka waa la teen maanta intii ilaahay soo bixiyay ilaahay u barakeeyo waxad moodasaan waxan la bixiyay wax badan madina ala alihi wa sahbihi wa sallam sallallahu Sheekh Umar Abdullah Hassan bay noo dhameeyay kelmadda waa ku mahadsanyahay anigoo ka wakiila gudida heer qaran ee gudida heerka qaran ee taakulaynta dadka abaaroobay waxaan idinku mahadnaqayaa sida wanaagsan ee isu gaarsiiseen ilaahayna intii soo bixisay ka abaal mariyo 220 qoys baa noo qorsheysnaa laakiin waa ka badiseen markaad laba ugu fadhiisateen ee saddex ugu fadhiisateen 400 bay madaxa saartay taana waxa lagu helaa wadaag iyo talada lagu helaa intii soo bixisay ee maalka ku soo bixisay Allah ka abaal mariyo inta kale ee wali maalka laga soo xaleeyay dadku waa baahan yihiin abaara ayaa jira culays baa jira dadka mid biyo iyo mid baadba way haysaa gurmadka laga qayb galo dadka loo gurmado waxa maantaan joognaa waa gargooray waxaan ka qaybinaynaa 300 ee ugu horeeyay gobolka Selen tuulooyinkeegii koowaad ee gargooray la yiraahdo 300 oo qoys baan ka qaybinay وحضر كسان بريس وشان 20 كيلو دقيقنا وشان 20 كيلو سكرنا وشان 20 كيلو سليدنا و3 كيلو قيس با لوgu tala galay intaasi insha Allah waxaan oran lahaa hadalka ma sii badinayo waa dadkeenii oo ay ku dhacday abaari ku dhacday waana la isu keen eegayaa nabigeena wuxuu yiri kaleey salaatu salaam anfiq yunfiq alayka bixi wala lagu siini إن شاء الله باقى أنا مرة بعض وحنا يهاي بعد ما هالسنتين أنت مسلمين تا ضلك الصومال لان جوكتها صوب حسين العقتن أنتينا كنا ناخذ ضيضة وحن قايمين دورنا بقولش أنا لما تنخلوا $1 بن قايمنا بقولش أنا لما تنخلوا $1 بن قايمنا سر الخو قايمنا
qaybtii ugu horeeyay waa taa saddex qaybood oo kalena maantaan soo qaybin doonaa wada arki doontaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala yaa mahadle ilaahay isagu mahadda ka sokow waxaan u mahadnaqaynaa shacabka iyo ganacsatada Soomaaliland ee ka jawaabay baaqi uu u yeedhay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland guddidu u magacaabay taagulaynta abaaraha saaga waxaanu joognaa gobolka Salal degmada Boon gaar ahaan dawladda la yiraahdo Gargoorey oo ku qaybinayno 300 oo qoys oo ah raashinkii ugu horeeyay ee guddida taakulaynta abaaruhu ay u qorsheeyeen gobolka Salal anagoo shaala wada gaari doona degmooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee gobolka sidaa daraadeed waxaan u sheegaynaa ganacsatada iyo muxsiniinta iyo dadka Ilaahay wuxuu siiyay in dadka aad ugu tala gasheen oo u baahan oo tabaalaysan inay macaawinadaasi ay gaadhay iyadoo degmada ay ka jiraan saan ognahayba ay abaara ka jiraan xagga raashinka iyo cuntada iyo xagga xoolaha iyo xagga biyahaba sidaa daraadeed waxaan ku dhiirigelinayaa in aad iyo aad looga qayb qaato aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaana loobaynin maamulka degmada heer gudoomiye iyo heerka amniga iyo odayaasha sida fiican loola shaqeeyeen إن لم تظفري لا تجزعي